kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal gebi ahaantiinba halkani waa maxamed yumi janal kusoo dhawaada gacmo furan. Maanta waxaan idin wadaa warbixin la yaab leh oo ka dhacday dalkaasi Mareykanka. Nin ayaa wuxuu si wadareeda u afduubtay 3 haweeney oo la deganaa magaalada uu deganaa. Haddaba saddexdaasi ayaa waxa uu ku qariyay qeybaha hoose ee dhulka hoostiisa guryaha ka dhisan, halkaas uuna ku haystay muddo gaaraysa ilaa 9 sano. Gabdhahani ayaa waxaa la kala yiraahdaa Michelle, Armanda iyo Gina. Haddaba saddexdan gabdhood waxa uu ka samaysan jiray wax walba isaga uu doono. Waxaa la sheegay in gabdhaha uu ka dhalay caruur fara badan, halka qaarkoodna caruur fara badan uu ka soo dilay maadaama uu aad u jirdili jiray mar walbaba uu gabdhahaasi ula kulmo. Haddaba sheekada la yaabka leh ee ninkaasi lagu magacaabo Castro ayaa waxa iyadu aad u sii shaabaxday kadib markii mid ka mid ah gabdhahaasi ay ka soo badbaaday oo dibadda ay u soo carartay, fursadna ay u heshay in ay banaanka ay timaado. balse intaan sheekadan kugu guda galin, fadlan waxaan kaa codsanayaa haddii ay maanta kugu horeyso channelkan subscribe inoo dheh, sidoo kalena like iyo share-tana waa inoo muhiim. aan ku wada sheekade gabdhahani ayaa ninkani waxa uu baadigoobaya in muddo ah oo nala socday xaaladooda. Sida la sheegay mid ka midana gabdhihiisa ayay saaxiib la ahaan jirtay. booliiska magaalada deganaa iyo dadka eriyadaba way ku wareereen baadigoobka gabdhahaasi oo jaani cirib meel ay dhigeen waa la waayay. in muddo ah markii ay raadinayeen oo ay waayeen akhbaartooda, haddaba waxaa loo diiwaan geliyay saddexdaasi gabdhood in ay geeriyoodeen. wili waalidkii dhalaysa iyo asxaabtoodii kama aysan quusan maadaama aan la helin cadeemo muujinaya gabdhahaasi jirkooda ama dhimashadooda. qaarkood ayaa waxay iska dhaadhiciyeen in ay wadankaba ka safreen oo ay u safreen wadamo kale oo ka baxsan qaaradda Amerika. waayahay sheekada halkeedii aan kaaga sii ambaqaade, gabdhihii mid ka mid ahaa ayaa waxay u soo carartay banaanka. waxay fursad u heshay mid ka mid ah dadka banaanka joogaa oo ka agdhowaa gurigaasi. waxaa deganaa nin madow ah oo goobta ka agdhowaa, waxauna taagnaa meel banaana. gabadha ayaa ku soo carartay, waxay tiri fadlan iyo badbaadi, waxaa la yiraahdaa Hiblaayo. gabadhan wejigeeda waxaa ka muuqda cabsi fara badan, jirdil, daal iyo rafaad. waxay u ekeyd qolyaha derbijiifka oo kale. waxay ku nooleed nolol aad u adag. ninkaasi waa u silcin jiray. ninkii ayaa la yaabay arrintii, balse waxaa sheekada xiise u sii yeelaysa ninka wuxuu ahaaba nin iska raaxaysanaya guriga banaankiisa taagan. waxa uu cunayay sandwich oo kasoo gatay maqaaxida weyn ee McDonald's la yiraahdo. odayga tartiibkiisa ayuu iska muudsanayay, raaxadiisa ayuu qaadanayay, jawi degan ayuu ku jiray, alaab sandwich oo aad u dheer ayuu isdhaafinayay. haddaba gabadhii ayuu mar eegaa, wuu la hadlaa, haddana cunitaanka raashinkiisii oo sii wataa. kulli waa nin gaajeysnaa. haddana marka lula hadlaa, ugu dambeyn ninkii waxa u wacay 911 ayuu u wacay. gabadhii waa uu caawiyey. markii uu caawiyey, sheekadan ayaa waxaa aad u buubuuniyay oo kor u qaaday warbaahinta, maadaama ay ka mid tahay waxyaabaha taariikhiga ah ee laga dhigan karo, sida filimaantoo kale laga soo mateli karo. nin 3 gabdhood guri hoostooda ku haystay, isla eriyadii ay deganaayeen muddo 9 sano ah, wax tuhuna iyo dareena iyo dhibaato aysan soo gelin, aanan la ogaanin, oo maalinkaa uun fursad mid ka mid ay heshay banaankan ay u soo carartay. sheekadii ayaa waxaa laga wareystay ninka isagoo Charles lagu magacaabo ee banaanka taagnaa ee sandwichka cunay. waxaa lagu yiri dhacdadan qaab ceenkii ayay u dhacday. warbaahinta ayaa la kulantay. odayga muuse iska waalin wuxuu yiri anigu iska raaxaysanayay banaanka taagnaa, waxaan cunayay xabad sandwich oo aad u dheer u yiri oo McDonald's aan ka soo gatay. aad ay u macaaneed, waa iska muudsanayay, tartiib aan gogosanayay. macnaha ninkan sheekada la weydiinayo iyo rafaadka 3 gabdhood oo 9 sano la raadinayay, oo caruur meeshaas ku dhalay, qaarkood jirdil iyo dhibaato fara badan ay ka muuqato, ayaa laga wareysanaya. asna waxaad moodaaba maalinka inuu ka xumaa in laga qaso cunitaanka raashinkaas uu cunayo, iyo inay ka tahay jacayl uu u qabo sandwichkaas ee leedahay shirkadda McDonald's ama aan iraade maqaaxida McDonald's. marka wuxuu yiri McDonald's kan kasoo gatay, tartiiba u goostaa, waa ku raaxaysanay, banaanka taagnaa, anoo iska muudsanayo. gabadhana soo gashay ee caawiyay tiri ee badbaadiye dhahday, magaceeda ii sheegtay, waxay doonaysay ii sheegtay, anigana waa badbaadiyey. booliiska ayaan ugu wacay. haddana saasay tahay sheekada, markaan gabadha badbaadinayay sandwichkayga waa iska cunayay, aad u macaana. markii dambe ninkan
wareysigiisa ku dhowaad 4-5 jeer ka badan ayuu wuxuu ku soo celceliyey raashinkii uu cunayay iyo sida ay u macaaneed iyo shirkadda lahayd oo McDonald's-ka. marka waxaa arkay warbaahinta McDonald's-ka ayaa arkay warbixintaas oo dhageystay, waxay yiraahdeen war ninka waabana anfacayaaba, anaga aad noo boonbooninaya. markii dambe shirkadda waxay la xiriirtay ninkii, way wareysteen, waan u sheegay sandwichkood inuu ku faraxsanaa. abaalmarin cajiib ah ayaa la siiyey oo dadka qaarkood ay aad ula amakaageen, qaarna ay yiraahdeen abaalmarintaas ka badan ama wax ka fiican ayuu u qalmay. ninka waxaa gacanta laga saaray waxa la yiraahdo kaar shirkadda McDonald's-ka ay leedahay oo sandwichkaas meel allaala meeshuu joogo oo si unlimited ah ama yacni aan xadidnayn uu ugu cuni karo. maalintii gaajo soo qabato markuu u baahdoba wuu tegayaa, kaarkaas dhiid uu siisanaya ama wuu tusayaa, waa member ka tirsan. marka ninka waxaa loo abaalmarintiisa ayaa sidaas noqotay. waxaa la yiri adduunka meeshaad ka tagto, Africa tagtaa, America tagtaa, Europe tagtaa, meeshaad doonto shirkadda McDonald's-ka waa tagaysaa keliya. waxaa leedahay waa kana ninkii hebel ahaa ee xayeysiinta idii sameeyey ee buubuuninta idii sameeyey waa aniga, waana kana kaarkeyga. balse su-aasha halkaas ka taagana waxay tahay oo dadka idinkeed ka midaba qaarkiis iminka isweydiinayaan, ninkan ma wuxuu cunayaa oo keliya maalinkaas sandwichka uu cunayay uu amaanta iyo macaantiisa iyo uu ka sheekeynayay ayay shirkadda u ogolaatay keliya kaarkaas inay ku marsan karo, mise wuu ku bedelan karaa oo chicken iyo burger iyo waxyaabo kale markaas uu ku qaadan karaa? su-aashaas laakiin warbixinta kuma aysan faahfaahsaneen, laakiin waxaa u badinayaa in wax walbaba uu ku qaadan karo maadaama dukaankaas oo dhan kaarkaas uu marsiisan karo. ilaan qof lama dhigi kare sandwichkan cun, cabitaan la-aan iska bax, jibsi la-aan iska bax, lama dhahayo kuley sidaan filay. marka waxay u badan tahay ninkan kaarkaas la siiyey hadduu South Africa tago iyo hadduu India tago iyo hadduu Australia tago, shirkadda McDonald's-ka wuu istaagayaa keliya, kaarkaas wuu tusinayaa ama wuu u marsiinayaa, wixiisa si free ayuu ku qaadanayaa inta noloshiisa ka dhiman. abaalmarintaas ayaa la guddoonsiiyey. dadka qaarna waxay yiraahdeen waxa u wanaagsaneed shirkadda inay siiso ninkan 2,000 ama oo 200,000 ama wax abaalmarin u wanaagsan, waxyaabo kale iyo noloshiisa uu kaga qabsan karo. laakiin ayaga waxay yiraahdeen annaga maalin walba raashin waa sameynaa, naga soo doono. marka waxaan ku dhihi lahaa adiga teebaa kula wanaagsan in ninkaas kaarkaas la siiyo oo inta noloshiisa ka dhiman McDonald's uu raashin kaga cuno maqaaxidaas, iyo in lacag magdhow ah ama la siiyo abaalmarin ah oo aad u tiro badan oo noloshiisa wuxuu doona kaga bedeli karo, guryo kaga dhisan karo, gawaari kaga gadan karo, doon iyo wuxuu jecel yahay kaga gadan karo, dhul kaga gadan karo, labis iyo familkiisa iyo caruur iyo wax haduu leeyahay iyo deymaha hadii lagu leeyahay oo isaga bixin karo. lacagahaas in la siiyo ayaa ani ahaan ila wanaagsan. fikradaas ayaan qaba, adigna ma ila qabtaa mise waxa qabtaa fikradda ah in ninkaas u fiican tahay kaarkaas McDonald's-ka meel allaala meeshuu tagana raashinkaas uu ka cuni karayo. warbixinta intaan kusoo koobaya akhyaari waa mahadsantihiin. channelka subscribe noo saara, noo share gareeya, fikradiina iyo aaraadiina waa soo dhaweynayna qaybta hoose ee commentiga inoogu soo gudbiya. sidaa iyo nabadgelyo.